نفسي بأديجي واحد نبا له دبا نبر لما أفلانيو لحن دري اسم نقطي نصيبك ما كلانتين أنا ما يسكنوا لهين انتاي نفسي بأديجي واحد نبا له دبا نبر لما أفلانيو نحن دري اسم نقطي نصيبك ما كلانتين أنا ما يسكنوا لهين انتاي اسكنوا يا اسكنوا علوشان ورنين horta waxaan ku leeyahay assalaamu calaykum daawadayaal waa idin salaamaya meel kastoo dunida ka joogtaan si aad iga barateen base lamida sidii hore ama si ka fiicanba waxaan idin hayaa muuqaal kale oo xiiso badan magacaygu waa Saciid Galeyr halka daawanaysaana waa Saciid Galeyr fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay de subscribe dhac isaga si haddii aadan ku cusbayna muuqaalka share garee fadlan share garee meesha doonta gee Facebook WhatsApp de meesha doonta gee adigu share garee aad iyo umaasantihiin ku soo dhawaada muuqaalkeena maantuna waxa uu ku saabsan yahay tubeeca qarniga muqdisho oo soo saartay tubeeca qarniga Abdiweli Ibrahim Maxamed waa wiil da'yar ah oo wacdara ka dhigaya tartanka heesaha iyo hibada jiilka cusub ee ka socda magaalada Muqdisho wiilkani waxa uu ku soo baxay wareegii koobaad cod aad u tiro badan iyadoo garsoorayaashii ay u kaceen wareegii koobaad nafku baahambane barbarkaaga ila qaabo معاني لا قابو يا سلام عبدولي إبراهيم محمد وأنا كويس تاجني صدق هذي قد جاوان تاجني والدريم كرسة واحد نستاشي أنا قدام كيجا ها عبدولي ما شاء الله والله يابله شعورتي يا درانكي لو باناوتا ما شاء الله اياد لا تيمي تونكينا هيستا حيسيسا له ها thank you الروليال هدي كو استاغين maxaa sugay okay wareegii labaadna waxaa sidoo kale u istaagay oo u riyaaqay garsoorayaashii halka Shimaali Axmed Shimaali uu ugu yimid masraxa isagoo ku dhiirigeliyay in uu fankiisa uu guul ka gaaro siba adeegi waxad nabaad lahu daba nabar lama afilaaniyo nahdin dari isma noqotay nasiibka ma kulanteen ana ma iska noolahayn intaa اسكنوا علوشان ورنين horta waxaan ku leeyahay goormad bilowday fanka mardow meeqa sana laga joogaa yani fanka sanad bilow mardow hadda ma bilowday sanadkan dhalish abo dadaal waa gaari doontaa insha Allah waxaan kugu soo kacay waa dareemaysaa ma fahamtay dhalinyarada wiilasheedo kala tahay guul ayaan ku leeyahay guul abo yarkani waa yar mucjiso ah dhabaantii marka runta laga hadlo tartankan haddii uusan isagu ku jiri lahayn waxnaha oo yeelan lahaa haba yaraatee ma jirto tartankan Abdiweli Ibrahim la'aantiis waxa uu noqon lahaa tartan aan macno lahayn dhabaantii marka runta laga hadlo aan isla daawano Abdiweli Ibrahim heestii uu ku soo bandhigay masraxa wareegii labaad ee tartankan tobanka noocaho nafsiba adeegi waxad nabaad lahu daba nabar lama afilaaniyo
naxdin dariis ma noqoteen nasiibka ma kulanteen annaa ma iska noolahay inan tahay nafsiba adeege waxaad nabaad la hurodaba nabar lama afilaaniyo naxdin dariis ma noqoteen nasiibka ma kulanteen annaa ma iska noolahay inan tahay horta daawade waxaad ogaataa fanku ma ahan waxa la iska dhigdhigo ma ahan ee waa u dhalasho fanku waa hibo wuxuu ilaahay ku siiyo codkana arkayso waa wax ilaahay ku siiyo maaha waxaad iska raadin karto oo aad doondooni karta ma ahan waa hibo 100% imise dhalinyaraha ayaa kasoo qayb gashay barnaamijkan sidaan qaybihii hore aan ku sheegayba waxaa kasoo qayb gashay ilaa iyo 80 qofood ilaa 80kii kasoo qayb gashay waa jiraan dhalinyaro fiican codkoodu aad u wanaagsan yahay hase yeeshee wiilkani waxa uu wareegga labaad kaga soo baxay 296 dhibcood ayuu kaga soo baxay 296 dhibcood bal qiyaas waxaa lagu sixi lahaa barnaamijka 300 oo dhibcood lagu sixi lahaa maadaama 3 garsoore ay joogaan sidaa daraadeed waxa uu qasaariyay kaliya 4 dhibcood ayuu qasaariyay 300 boqol 4 dhibic kaliya ayuu ka qasaariyay tobanka noocaho nafsiba adeege waxaad nabaad la hurodaba nabar lama afilaaniyo naxdin dariis ma noqoteen nasiibka ma kulanteen annaa ma iska noolahay inan tahay waxaad arkaysaan marka daawaday in wiilkani ay wixiisu yihiin hibo hadda waa hibo ay yihiin maxaa yeelay inta uu leegyahay aad ayuu da'yar yahay hadduu kor u bato wuxuu jiri karaa 17 sano ayuu jiri karaa waana arkaysaan taalantiga uu leeyahay markii uu soo baxay wareegan wiilkan ku jiro baartigan yani wiilkan ku jiro markii uu soo baxay ee aan furay ee arkay in Cabdiweli uu ku jiro been ma kuu sheegayo wax ka badan 10 jeer ayaan dhageystay oo aan ku soo ceshtay kaliya codkiisa more than 10 times sababtuna waxay tahay waxaa jira fanaaniin tira badan oo hadde sidaan hore idinku sheegay basuuq ku jira hadda hase yeeshee maanta haddii la yiraahdo tartan baa la qabanayaa aan Cabdiweli gaaraynin waan hubaa taas waan ku dhaaranayaa tobanka noocaho nafsiba adeege waxaad nabaad la hurodaba nabar lama afilaaniyo naxdin dariis ma noqoteen nasiibka ma kulanteen annaa ma iska noolahay inan tahay dhabaantii anigu haddii aan Cabdiweli kula jiro group haddii aan Cabdiweli groupkiisa oo kale aan ku jiro yani intaan tartanka la gaarin baan iska tanaasuli lahaaba gurigay aan iska aadi lahaa maxaa yeelay groupka hal qof baa ka soo baxaya in aanan ka soo bixin anigoo kula jirana waa iska caddahay sida daraadeed xaafadayda aan iska seexan lahaa waqtiga waan iska qasaariyeenba markii barnaamijkan la soo geliyay Boga Balambalis studio ee aan akhriyay commentiga dadku ay ka bixinayaan waxaan arkay dad tira yar oo dhahaya maxaa loogu istaagaa wiilkan yani maxaa saan loo yeelaa dadka kale ee tartamayaasha kale ayaa niyad jabaya abtaan wax ku sheego adduunka haddii aad daawatay waxaa jira barnaamij la yiraahdo Got Talent programs oo inta badan wadamada horu maray ka jira ani Afrikadan yani horta inta badan Afrikadan wadamada ay ka jiraan way tirsan yihiin hase yeeshee wadamada horu maray inta badan way ka jiraan waxaan ugu caansan barnaamij la yiraahdo America Got Talent iyo British Got Talent ayaa ugu caansan marka haddii qof ka mid ah tartamayaasha uu soo bandhigo wax aan caadi ahayn wax cajiib ah oo loo riyaaqo
dadka kasoo qaybgalayaashana way u istaagaan oo waa u sacabtumaan garsoorayaashu sidoo kalena waa u istaagaan xitaa mararka qaarkood waxaa dhacda in garsoorayaasha qaar ka mida intay tagaan ay habsiiyaan qofkaasi ayna dhiirigeliyaan barnaamijkan Got Talentska inta badan waxaa lagu qiimeeyaa oo aad loogu qadariyaa nin la yidhaahdo Simon Cowell ninkaasi waa nin aad u adag garsoorkiisu uusan caadi ahayn sida loogu qosliyo ama dareen loogu beerna ay adag tahay waxaana ku tusinayaa ninkaasi oo u riyaaqaya mid ka mid ah tartamayaasha sidaa daraaddeed intuu u tago hab siinaya oo dhiirigelinaya I have to tell you, I don't know what it is. You are so funny and so unpredictable. You just got the most amazing energy. This is the break you've been waiting for. Thank you so much. I could not be happy with you. Enjoy this. waxaa kaloo jirta haddii tartamayaashan cabdiweli dad kala tartamaya oo kale haddii ay soo bandhigi lahaayeen waxyaabo cajiib ah ama codkoodu halaazi oo noqon lahaa ama ay talenti faleed ay leeyihiin si lamida sida cabdiweli loogu istaagay oo loo dhiirigeliyay ayaa iyagana loo dhiirigeli lahaa oo loogu istaagi lahaa sidaa daraaddeed in tartame cajiib ah la dhiirigeliyo waa wax jira caalamka wax hadda bilaabanay ma ahan marka waxaan jeclaan lahaa inaad programyadaas oo kale soo daawataan si aad u aragtaan in garsoorku mararka qaarkood uu dhiirigelin karo tartamayaasha kuwa ka mid ah intaasi ka bacdi daawadayaal haddii dhabta laga hadlo barnaamijkan haddii uusan cabdiweli ibraahim ku guulaysan wax ka jira ma lahan dhab ahaantii wax ka jira barnaamijkan ma lahan haddii uusan cabdiweli ibraahim ku guulaysan aad ayaa u mahadsantihiin daawashada aad daawateen muuqaalka fadlan haddii aad janalka ku cusub tahay subscribe saar haddii aadan ku cusbayna dee asxaabtaada la wadaag muuqaalkii maanta intaas ayuu ku egyahay inta aynu ku kulmayno muuqaalkan muuqaalkiisa xiga waxaan idinkaga tegayaa daawadayaal nolol caafimaad leh